shaqsigii labaad oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa dilkii Allaha u naxariistay Sheekh Maxamed Xasan ayay boolisku shaaciyeen in loo jaray waranti xiritaan ah iyadoo oo boolisku ay haystaan go'aankii ay ku soo xiri lahaayeen isla markaana ay og yihiin halka uu ku sugan yahay. Shaqsigan oo ah 22 jir madow ah laguna magacaabo Isaiah Brown Miller waxa uu ku eedeysan yahay dilkii Sheekh Maxamed Xasan Aadan iyadoo uu jiro shaqsi kale oo wali boolisku baaritaan ku wadaan isla markaana ay ka dhursugayaan cadeymo ku filan. Sheekh Horseed Nuux oo kamid ah guddiga arrintan u xilsaaran isla markaana sida joogtada ah ula xiriira booliska ayaa ka warbixinaya kulankii ugu dambeeyay oo ay la yeesheen booliska iyo ninka lagu soo eedeeyay inuu yahay shaqsigii labaad ee dilkan ku lugta lahaa. bismillaah waxay bilayska magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo laamaha amniga iyo dambi baarayaasha iswada kaashanaya ay ku guuleysteen in ay ma aragtay warqad waran dacwo ku soo oogid ah u jareen nin la yiraahdo Isaiah Brown Miller oo dadkan madowga ah da'diisuna dhowr iyo 20 ay tahay. Ninkaas ayaa waxay ku soo eedeeyeen ku soo oogeen inuu yahay dambiile ku lug leh dilkii Sheekh Maxamed Xasan Allah u naxariisto oo habeenkii sanadkii hore tagay Christmasku markuu soo galayay meydkiisa ay jaariyada Soomaaliyeed ee Columbus Ohio ka heleen wadada 17ka iyo Choice meel u dhaxayso markaa meydkiisa la soo dhigay. waxaa xusid mudan in uu horay u xidhnaa nin isna madow ah oo John Wooden Jr la oran jiray oo runtii aan aaminsanahay in uu isagu ahaa maaragtay dadka gacanta iskale gacantii sheekha dishay. waxaana saa u leeyahay runtii soo qabashadiisa waxaa ka hadlay meeyarka magaalada Columbus ee gobolka Ohio maaragtay Mayor Ginther. waxaa kaloo war-saxaafadeedka uu meeyarku ka hadlayay joogay mas-uuliyiintii u sareysay laamaha bilayska iyo hay-adaha amniga iyo khubradii dambi baarayaasha u sareeyay. waxaa kaloo joogay hay-adaha u dooda xuquuqda muslimiinta mas-uuliyiintooda u sareeya CARE. waxaa kaloo joogay ehelkii iyo asxaabadii iyo horjoogayaashii magaalada Columbus Ohio. intaas oo qof runtii isumaana yimaadeen haddii meeyarka ilaamaha amnigu aanay haynin xog cadaynaysa ninkaasu inuu gacan ku dhiiglih yahay. ninka John Wooden ee xirnaa fingerprintyadii laga qaaday isaga ee loo diray shaybaadhada waaweyn iyo raadkii faraha sheekha laga helay way isqaateen way ismaajgareeyeen. sidoo kale waxaan ognahay qoloftii ka daadatay xabadda goobta sheekha lagu dilay meydkiisa laga helay iyo ninka madowga xiran hubkii gurigiisa laga helay. labada qolfoodna laba qolfood oo isku sumaday ahaayeen. marka intaas runtii nagaga filnayd cadayn inuu isaga ahaa ninkii gacanta lahaa. waxa ay raadinayeen markaa waxay ahayd ciddii la dishay waayo waxaanu ognahay runtii in ma aragtay kolkii la eega xabadihii sheekha ku dhacay intay la ekaayeen iyo macnii xabadaha tira ahaan iyo meelahay kaga dhaceen dhammaan ay ahaayeen ma aragtay kuwo dhinacyo kala duwan kaga yimid taasoo muujinaysa inay qof wax ka badan u sheekhu dilay. gunaanad ninkaas yaa loo jaray dacwadaas. mar haddii dacwad loo jaro oo saxaafaduhu ay soo qaataana waxaanu filaynaa ama inuu hadda xiran yahay ama beriba in xabsiga keenaya. nin baxsan kara ma aha. arrintaasaa kusoo korodhay dilkii Sheekh Maxamed Xasan Allah u naxariiste waana runtii guul u soo hoyatay guud ahaan mujtamaca Soomaalida gaar ahaana qoyskii uu sheekhu ka dhintay iyo bulshadii jecleyd ee uu la noolaa Columbus Ohio. Sheekh Maxamed Xasan waxa uu ahaa hogaamiye ku weyn bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus Ohio. waxa uu ahaa ganacsade, imaam, dirtoor, aabe iyo waliba ganacsade aad looga tixgeliyo gudaha magaaladan isla markaana soo dhaweeya caruurta liidata ee ay markaasi la soo diristo daroogada iyo waliba dhibaatooyinka kale ee ka dhanka ah bulshada dhexdeeda. Deqasona SNTV Columbus Ohio.